madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii ka sii horeeyay dowladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed oo gaaray magaalada Kismaayo ayaa la kulmay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxdii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo horey ayagu u soo gaaray magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale sawirka ku wehelinayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan dalkeena Soomaaliya kana mid ah madaxda sida weyn uga soo horjeeda dowladda Soomaaliya ee haatan talada haysa. madaxweynaha Jubbaland oo madaxdan kala duwan ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay farxad u tahay madaxdii hore in ay ka soo qayb galaan ama ay yimaadaan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland si ay uga qayb qaataan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maantay waxaa magaalada Kismaayo ugu tagay wafdigii ugu badnaa oo isugu jira siyaasiyiin, xildhibaano, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana lagu wadaa in la qabto maalinta bari ah oo ku beegan 11 Oktoobar.